kilomitir xagga bariga taasoo aanu kurgalay geelasha had iyo jeer ale imka waa la xanaaneeyaa sidii hore maaha bal markaa waxaynu eegnaa sababta geela ku kaliftay ina laga soo kaxay daaqsinkii uu bariga hore ku sugnaa jiray iyo magaranaysa iyo in imka lagu soo dhaweeyay magaalada oo la xanaaneeyo xeerada soo galiya markaa inta aynaan barnaamijka u guda gelin iyo geela waxaan idinka codsanayaa subscribe like channelka Zimbabwe iyo committee deesina share gareeya waxay la joogaa ragii geela hay jiray ama ka shaqay jiray geela halkan ku xareysan aragtaan marka ku soo dhawaad magacaaga Maxamed Salamaano waxaad iga warantaa bal sababta warbixin waxaan naga siisaa geela markuu daaqsinkiisu miyigu ahaa jiray imikana waxa lagu soo dhaweeyay magaaladii bal waxaad warbixin naga siisaa sida sababta keentay iyo magaranaysa sida ay ku wacnaaday in geela lagu soo dhaweeyay magaalada waxa sababta keentay in geelan waa geel libiye waa geel lisay marka sidaas sababta keentay la soo magaalada libiye ay soo door la istaasa door waas sideebu ku wanaagsan yahay geelu markuu baadiyaha shi joogay iyo maanta markuu magaaladii dib joogay keebu ku wacay hadda wacay hada barwaaqan uu iska haystaa wala deeradisay magaalada dadkii caani baa looga dhisayaa waa markaasane aadiya naftiina idinka ka waran sidee idin tahay soo dareenkiina meesha halkan inkasta magaaladiina ku dhowdiin hadana ayga ku jirtaa ka waran waa wacantoodii magaaladiina ku dhowna miyigina waa joog magaalada ma soo gashaan ma gaadhay wala tagaad waxa looga jirto waa وين أروح هاي نجيل شراء وهو جيل رجل جيل هيا جيل كل واحد توضع يا سوا أركتن جيلو أبوانين بدن يفنانين بدن باكو عبري سوغان تودا مركز كل واحد صومالي هذا إمكان كان لوجو فانا صومالي ده كوجو فانتا جيلو ويا يعني النجا مركز والواحد نجا يردري سيستها جيل هيست لوجو يرهست جيل لوجو هيست لوجو هيست سيس بيتربدين أي ناس حولات هيست مركز لو رابني waxaan leeyahay feerihi waa kuwa fidii fidada maray feerihi koobay faana mayne waa kuwa fidii fidada maray marka la soo caraabinayo عكت صار راي عالمين كيو عادل كوسا هذه نيكن محمد بالي هذا هو نيك جيلان لسا حيانا راعنا صحري halkan saaw aragtan waxa ku xareysan dirto halkan waxa ku xareysan geeli waaweena markaas halkan qayb kale ku xareysan oo kale yar yihiin marka halkan waxa jooga qaar dhashay oo marka inta wali yar yareen oo xoga laaleeg ma garan barada hore inagu sii socon ma inoo qabo Dararaya ila bani
ka yaryahay nirgaa kale kuma daryeesho markii kuma deeqdo lagama kurushe gabna kuma daryeesho markii kuma deeqdo lagama kurushe gela markuu dararaya labanin Right. hal buu dhunkaday عدكم البحر يا مركان كجرو بالك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan joognaa meel burco dhow oo maxay tahay dhowr kiiloomitir ka xigta dhanka bari waxaan la joognaa sida arkaysaanba geel baan la joognaa soo booqanay naga lisinay maxay ahayd soo geel bariga hore waxa loo jiray wuxuu geel baan leeyahay geel jira wato ayda iska wareego aan wax manaafacaad lahayn oo geel jiraha sun maalabu ahaa imanka
runtii waxaa la fahmay nolol cusub oo geel uu leeyahay. geeli waxa lagu xareynayaa magaalada dusheedii, caanihiisii waxa la keenayaa fiidkii iyo subaxiiba, iyagoo candhadii hashra sidii looga soo dhisay kulul oo dadkiiba munaafacaadsanaya. marka waxaan oran karaa runtii iminkunba geela la fahmay noloshuu lahaa iyo sidii systemku ku wanaagsanaa. waana ninkii geel la waaleeyayo, waa nin geel lahoo geel dhaqday. maanta Soomaalida geela halka ugu yaalda waa ogyahay. ninkii waana nin geel dhaqday, waana nin maxay tahay magaalada dusha jirto ummadda munaafacaadsanaysa magaalada keenaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayguna Faarax Axmed Maxamed, waxaan u imaaday geelan markaas tagfilaysi joogtaa. السلام عليكم. daawadayaal si ay arkayseen kaasi wuxuu ahaa Faarax Axmed, waxa weeye ragga ka qaada halkan geelan si joogta ah caanaha oo u gaarsiiya magaalada. markaas waa arkaysaan geelani wuxuu joogaa waddanka, arkaysaan barwaaqada ma aha geelasha rafaadka iyo hawlaha loo mari jiro casriga arkaysaan baa la gaaray. waxa weeye geela magaalada sidoo kaas ka xaroonaya, caanihiisa waa la qaadaya, waa bal lagu afuraya.